kulankan wada tashiga ahaa oo looga hadlayay qaabka geedi socodka dib u eegista dastuurka oo ay ka qayb qaadanayeen bulshada Soomaaliyeed ee ku nool degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa lagu qabtay degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ujeedada kulanka ayaa waxa uu ahaa sidii loo fahamsiin lahaa bulshada ku nool degmada Warshiiq iyo deegaanada hoos yimaada muhiimadda dastuurka uu leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo doorka ay ku leeyihiin bulshada ku nool degmada Warshiiq iyo guud ahaan dadka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe. dardargelinta dastuurka gudoomiyaha degmada Warshiiq Umar Maxamed Umar ayaa ku dhiirigeliyay bulshada reer Warshiiq in ay qayb weyn ka qaataan arrimaha dastuurka iyo sidii loo gaarsiin lahaa deegaanada hoos yimaada degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Hirshabeelle waxay u timid inay wax ka tiraahdo barnaamijkan ay wadaan arrinkana aad dhegeysataan marka sida ku habboon aad ka tiraaheen waxyaabaha idinkaga aadan hawsha idinka idin taallaa xoogeeda Warshiiqa iskale inay ka yidhaaheen waxyaaba kelimada ugu habboon iyo qaabka wax loo gaarsiin lahay degmadan waxay ka kooban tahay konton iyo 3 kiilo waaweyn كوير أو ولي مثلاً كورة يودا من العساسوها كذا أنت عادي على كنت شيء هواي أنت إلا جالسين wasiirka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle injineer Maxamed Cabdiraxmaan Ibraahim ayaa ka warbixiyay muhiimadda ujeedada kulanka doorka ay wasaaradda dastuurka ay ka qaadanayso. kulankani kulan badan waxaan ku qabanay sidoo kale degmada Jowhar sidoo kale waxaan ku qabanay Beledweyne haddana waxaan imaanay degmada Warshiiq runtii sharaf weyn baan tahay la kulmo dadka Warshiiq aad baad u mahadsantihiin. Muuse Cusmaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.